هلو السلام عليكم. عليكم السلام kusoo dhawow barnaamijka dariiqa toosan magacaaga ilad ka soo hadlayso waan dhawahay wax ka soo hadlaya Hargeysa magacaagu noo Cumar haye waxa jiray imaamada kuwa qowlkoodii ficilkooda kala horeeyo haye marka ma qowlka imaamka raacman ficilka imaamka maxaad markaa uga jeedaa macnaha waxa jira Allahu akbar tii waxa ka horeeyo ficilka inuu sameeyo waa hagaag halo السلام عليكم. عليكم السلام kusoo dhawow magacaaga ilad ka soo hadlayso su'aasha وسهرة فرحانة كسر لسه مقالة اللي بيشتغلوا وحويتين يا شيخة. سراد الجمعة سقوا كون أفر في وحي كذا لبا قبضوا يلا بفر لها دمركم حيث كني ما أفرتي سقعدوا ذفر الكها حيث ما يرتاحين يا بويتين يا. واجي. وعنده الجمعة. أنتم ما صنتي. هلو. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. magacaaga ilad ka soo hadlayso su'aasha وياسين ka soo hadlay Ibrahim. haye waxa sheekh wadila hadii meel lagu dhigo meherada laga tago lagu dhaxdo misaajka in qabanino waxa ku soo maxay qabtaa intaan waa hagaag sheekh soo dhawow alxamdulilah maxamed baa ay u horreeyeen su-aasha hore waxay ahayd geela aan laga bixinayni sakada cadkiisa iyo caanihiisu ma xalaal baa mise wuu xaaraantinimoobaya mee cadkiiyo caanu waa xalaal xoolahanna may xaaraantinimoobin laakiin qofkii hantiilaha ahaa ayaa ku dambaabaya ee sakadan bixin lahaa isagaa lagu leeyahay xoolaha inuu bixiyo haddii isagoon sakadii bixin ay ka baaba'aan ama ka madhaanna isagunbay weli saaran tahay sakadii laakiin cadkoodii iyo caanahoodu waa xalaal su-aashiisa labaad waxay ahayd ilig dahaba miyaa la gashan karaa jawaabtu waxa weeye haa haddii loo baahdo oo wax kaloo halkiisii ku filaada la waayo ama ur iyo isbeddel ay keenayaan wixii kale waxa u daliila wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin sanku uu go'ay intaa hore jiricda san ayuu u oggolaaday inuu san dahaba samaysto ninkii carfajo la odhan jiray waayo lacagtii markii uu gashaday way urbay samaysay markaa qofkii u baahda wuu gashan karaa dhib mala haddii baahi jirto cumar su-aashiisu waxay ahayd waxaa dhacda imaamyada qaarkood in qowlku uu ka horeeyo ficilkiisa marka uu dadka tukinayo oo maalan isagoo weli allaahu akbar aan odhanoo sii foorarsanin ayuu horta foorarsanaya meel hore markuu sii marayo allaahu akbar odhanaya markuu sii kacayana markuu isa sii taagayaabuu allaahu akbar odhanaya iyomaa la raacaya waxaa la raacayaa qowlkiisa sababtu waxa weeye waxa laga yaabaa inuu culus yahay qofku marka hadduu markuu soo kacayaba allaahu akbar bilaabo waa laga horeynayaa marka waxa laga yaabaa inuu door biday markuu sii dhowaado inuu takbiirta bilaabo si jamcu uga dambeeyo waanay ku habboon tahay qofka culus markuu sii socdo sii foorarsanaya iyo markuu soo kacayaba raagaya dadkeennuna waa kuwan degdega jamca la tukinaya waxa caado u ah markay imaamka la sii foorarsanayaan iyo markay kacayaan iyo markay salaamo naqsanayaanba way qadiman yihin waabay ka horeynayaan marka hadduu culus iyo xikmaddaa isticmaalo dhib ma laha muhiimadduna waxa weeye ficilka imaamka in ficilka dadka uu tukinaya ay ka dambeeyaan marka qowlkiisa la raacaya sahra su-aasheedu waxay ahayd ragga waynu naqaanaabay tiri markay tukanayaan jumcada dee laba khudbadood iyo laba ragcadood baa la tukadaa salaadii jumcaha dumarku say u tukanayaan dumarku hadday ragga la tukanayaan waa jawaabtii sidaa ragga oo kalunbay tukanayaanoo khudbadiina way dhegaysanayaan labadii ragcadoodee jumcahana way tukanayaan laakiin hadday gooni isaga tukanaysay gurigeeda ku tukanayso afartii ragcadood ee duhurka ayay tukanaysaa iyo sunnayaashii ka horreeyey iyo ka dambeeyey raggun baanay salaada jumcadu waajib ku tahay ee dumarka way iskala soo tukan karaan oo jamaca way ka faa'iidaysan karaan laakiin waajibku ma aha yaasiin su-aashiisu waxay ahayd nin baan u shaqeeyaa markaa wuxuu igu uri jamaca ha tegin salaada jamaca ha tegina shaqadaasun ku egow miyaan aqbalayaa mise waan iska diidayaa mee qofku inuu oggolaado maaha inuu diintiisa ka tago si uu duunyo u qaato diinta asal ah duunyadii iyo maalkuna waa soo raac marka u horeeya ee la wada shaqaysanayaba heshiiska waa inay ku jirtaa cibaadadu jumcada see loo tegayaa jamaca see loo tegayaa goormaa meherada la xidhayaa goormaa la furayaa marka faral waajibkan ilaahay ayaa ka horeeya waajibaadkay dadku kugu leeyihiin ee xagga shaqada la xidhiidha isagaana laga fuur yeelayaa wallahu aclam